هامه يو الداعي هبين بقطع قحر تجيا مال لا بكو يلا سوق من كولين بوك تتلا مغاله لا عيدا لا arkaa ma jirto marka dawladda intay daba gasho oranaysa jegareeya oo yani quality-geeda iyo tayadeeda intana xumaatay intana khatar noqotay intana sida noqotay intana ka noqotay inta oranayso oo kula xisaabtamaysa shirkad hadday shirkadan xumaato ay waxaysanto loo guuro la tartamaysa challenge ku samaysan tartan kula samaysan ma jirto waa waxyaabo fara badan yaa maxaan ku dhahay shirkadaha dawladda oo waxaysan marka tadar shirkad wax barnaamij waa shirkad dawladdu leedahay kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasheena ku xidhan barnaamijka xog waran kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay suuqa magaalada Jigjiga saaka dab xooggan ka kacay kaasoo khasaare kala duwan oo hantiyeed ka geystay magaalada waxaa xogtaasi noo soo dhindheeyay isla markaana sidoo wax u dhacay si dhow ula socday Cabdiraxmaan saaxiibkay wari Cabdiraxmaan oo garabkayga fadhiya Cabdiraxmaan bal markore kusoo dhaw barnaamijka xog waran magaalada Jigjiga saaka dab ayaa ka kacay dabkaasi maxaa sababay iyo maxaa khasaaro geystay بسم الله ودوي مهدين وسلام يا داود يا شيخ كل برنامج كان بعد سلام وحامانت كنتي حلي ساكا أرورتي وحلي يدك شغلة جاية سوقي وزحمة بطنا مجال تيجي وسوق حياة فرق بدن كل مية وسوق خضارتا وسوق الراشيكا وسوق قيبة كم الدركة سيبا دورك عيالك وسوق قاد قيبة كم الروكا وسوق قيبة كم الهيلكا وسوق قيبة كم الفانيتشا وحيوان اسم ياش يقول يوحى روكا سوقاس وسوق وين وأتبع حضره وطلن ذهب قبل لعبة كتيرة سوق جاري مقلو سحمده كقب جاري قلا بتشاس تكشاي مدة يكون حجري وسوق هذيك أنك الدولة ده يعني أنت عادي كه باهيات كأساسية آد وأحدا وآد يعفر بدن وقام موضوع وسوق أن لا بلهين وسوق أن كالجهين يكلم نظام لهين وسوق وطدا برتن كذا أن محمد هاي هيوي كراشين كوميسيان وكذا سيب الراشين قامتك لا تومي راشين لا تومي كلا شيء كحيوان مع عصر جيدا عندوني كلا وطرو وحياة عانها يا وطدا برتن كذا وكذا يا لا مدي بيجي لا يوطو wadadii noocaas ahayd buusta iyo boodhka iyo waxa ka socda malayn maysi guriyaha ku yaala guriyaha laftoodu aad u waxaysan waxyaabaha noocaas marka waxay caawinayaan khataraha dabiiciga ah haddii ay biyo yimaadaan iyo haddii uu yimaado dad waxyaabaha noocaas oo dhan bay caawinayaan suuqa marka suuq yani juqraafi ahaan sidaas ah buu ahaa suuq aad u dad badan weeyaan maanta aad waxaan uga naxsanaa in la yidhaahdo intaas oo kun oo ruux yaa ku dhimatay laakiin waxaan dhaawac ahayn khasaaraha teed mooyaane lama arkin suuq marka uu gubtay waana khasaarihiisuna khasaara badan oo hanteed marka maxaa sababay leeyahay suuqa waxaa sababay niyahow waxaa sababay koronto hamaha korontada kaydka korontada dhalinyaba meesha ku yaalla oo duguuday oo saliid iyo biyo ka da-ayaan oo aada fool xun oo aadan istahaynin malaha dee shirkad la dabagelayo oo lala xisaabtamaya haantaale haantani waa markii saddexaad ama afraad saddex horta waa maba markii saddexaad ay saas oo kale dab u dhaliso hadda markii ugu dambeysay markii ugu horreysay gabar baa ku dhimatay marar kalena way samaysay haantaas lama bedelo lama dayactiro lama waxaysmiyo lama jeegaraynayo haantii noocaas ayuu dab ka dhashay dabkiina inay dad badan oo shalay ama saaka niskii hore maxaan ku dhahay hantiirayaal kusoo toosay maanta cayr faramadow tiya gabadh ugu dhacay haantaasaa sababtay waa marka xilli yani lasoo toosay bay ahayd magaaladu waa magaaladii deegaanka caasimadda u ahayd oo gaadiidkeeda dabdabisku u shaqeeya gaadiidkii dabdabiska ee gurmadka aba meesha soo gaadhay waa la damiyey laakiin wax fara badan iyo galaaftay oo dee jaamka iyo saxmadda suuq guraha iyo guriyuhu iyo dukaanuhusi isugu dhow yihiin sida iridda wax walba u daacsan yahay dadkaa wadada irideeda ku shaqaysanayo raashinka kunka nooca meesha ku haya habeenkii markay tegayaan afkan bay bac ka saarayaan dhagaxunbaa hareeraha laga dhigi waa lagaga tegi lama qaado subaxiina waa laga siri wixii marka bug yahay waa khatar fara badan yaa sadaqaa ku baxday maanta magaaladii Jigjiga
ودنبينا ولا دمي دبدومس كدمية وقت مركع حق الدولة وكلا طبعا صار حستي أنا سيدا إنه الله سعنا لا حما دوي كل حياة وبها عيني كسر السوقية ده سبب ده كان سيدا وكلا وقع أو يسون نقطة دولة مشرا وحكا هذا لا أو مسيبة دبكة تتبع عن ضد ساس يكتبها حالة هنتي كسر حذي يوم هنتي ريالة سهرة ساكن يوم عيرة وصوت وصوت هنتي شو دي بس فيش ومسيبوين كدع الدنيا دي كم دولة مكان شو دي وحورة ملاحية horta islaamaanta wuxuu ahaa dawladdu inay caawiya niska dambe ee maanta ka hadli doonto iyo wararkeeda ay soo saari doonto ku doonay doonto mooyaane ma jirin mas-uul intuu meesha taagnaa dadka wax ka daminayay oo hadlay oo bulshada la hadlay oo dareen noocaas muujiyey ma jirin markii gaadiidkii dabdamiska iyo dee howlwadeeladiisii iyo shirkadii iyo maxaan ku dhahay dadkii xaaqlayaasha ah ee hantuu meesha kaga gubanayay ummadii noocaas ay gubatay ee demisay mooyaane dawlad soo hadashay oo ama wasiir ka socdo ama madaxweyne ka socdo ama maamul magaalo ka socdo oo intay hadashay wax ka daminaysay meesha ma aysan jirin ilaa iyo haddana baraha bulshada aad waxaa loo warfinayay yani dawladdu waxay ama hadda uga aamusan tahay ama ayna weli uga hadlin taa bedelkeeda waxaa la garab dhigaya iyadoo laleeyahay waxay mudnaanta siin doontaa xuska cadwa oo maanta kubetelaa oo inay ka hadasho ama ay maxaan ku dhahay shir u qabato yaa laga yaabaa magaaladii saas noqotayna ma ayna ka hadlin dhaliilaha loo soo jeedinayo ay kamid ahay dawladda baraha bulshada dadka isticmaalaya degaankii ay aada usoo degayeen dawladdu ma aysan ka hadlin haddii ka hadashana waan dhawri doonaa dhaliishana lama wada laha ma jirto shirkado badan oo koronto waddanku ma laha shirkado badan oo koronto ma laha hal shirkad oo tan Ethiopia Electric Power iyuu leeyahay mabrad xaytana midaas haddii xataa tiir kaa soo dhaco ood iga bedela tiraa kaama bedelayaan haddii xataa uu maxaa ku dhahay wartiirkan khatar buu yahay uu gaaban yahay oo jiikad heblaayo iyo birheblaayo taabanaya khatar buu dhalin karaa kaama bedelayaan maalin dhaweyd waxaa dhacday aniga guriga aan deganahay xadhiga soo gala tiirkii ku xidhnaa intuu duugoobi carraduna way koraysaa yuu gaabtay xaafad marka derbigeeda ku dhegan yuu jiinkadeeda taataabanaya xoqayaa dayrkuna waa jiinkada xaafadaas jiinkadaas hadduu taabto de xaafadii wixii way gubanayaan waa la dhimanaya wana soo gudbiyo waxaa ku wada wareega bedelo oo tiirka alha la bedelo waxay u qaadatay muddo sanad ku dhow inaan daba wareego haddii ay korontada kaa xumaato yani adaa la bixi lacagtii laakiin shaqaale ku adeega oo shirkada ka yimid meesha dabagal ma jiro waxay ku dhahayaan weliba shaqaalo markii adigu isku dhiban ku arkaan qolada shirkadda ah digaar kula baxaan bay koroneen intaa maad iska bixin anigaasi madax banaan kugu qabanaya waa tii aad xaqa u lahayd in adeegaas lagaa caawiyo haamaha iyagoo wada da-aya habeenba ku daaqaxda jijiya meel cilaan bay ku yaallaan suuqun bayna ku olinay bug inta tirada magaalada hilaaceeda la arkaa ma jirto marka dee dawlad intay daba gasho odhanaysa jegareeya oo yani qualitigeeda iyo tayadeeda intanaa xumaatay intanaa khatar noqotay intanaa sida noqotay intanaa ka noqotay intan odhanayso oo kula xisaabtamaysa shirkad haddii shirkadani xumaato waxaysanto loo guuro oo challenge ku samaysa tartan kula samaysaan ma jirto waa waxyaabo fara badan yaa maxaan ku dhahay shirkadaha dawladda oo waxaysan marka haddana shirkad madax banaan mee waa shirkad dawladdu leedahay oo shirkad qof shacab ilaahay oo madax banaan ama hantilayaal ama shirkado wixii ah maay ah tii noocaas ahayd waxaa dhacday maalin dhaweyd waxay kor u dhigeen qiyaas ku dhow labanlaab percentageka dabka la cunayay kaarka lagu shubanayay qiimaha berminit ay goynsanaysay yaa labanlaab laga dhigay way ku dareen ma jirto markaa cid maxaa ku dhahay kula xisaabtamaysa oo dhima dhahaysa ama kuma dari kartaan ama diidaysa shacab mudaharaadaya oo diidaya isagoo sidoo kale shirkad iyaduna hoos u dhimayso oo iyaga la tartamaysa ma jirto waxaad ku qasbanaan halka ay geeyaan inaad samayso marka lama wada laha dawladda haddii ay la xisaabtamayso magdhowga cidda bixinaysa iyo tallaabo kasta oo maxaan ku dhahay dhacdo cidda dembigeeda qaadaysa waa shirkadda korontada ee Ethiopia Electric Power. aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdiraxmaan intaa ayaan ku saafmeynaynaa barnaamijka xoog waran oo aan kaga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyey magaalada Jigjiga oo dabcan musaaka dab ka kacay intaa barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.